maantay shirkii aan la galay beesha caalamka oo xagga siyaasiyiinta oo laba qaybood ahaa shirkaasi waxa shiraad iyo aad u wanaagsan waxa markii hore ay sarkeen madaxweynihii hore dowladda Puntland kabacdina aniga iyo siyaasiyiinaha wada soconadaanu isaragnay oo ka mid ahaa maxamed cabdi nuur oo musharax ahaa cali cabdi awaare dr yaasiin faarax xasan عثمان قبورة هكفر بدن بيحاول موقف كانوا قدنا وقوع موقف سياسيين كبنتلان المانتا أرجع يتيم كيسو طبعا قرشوه بوقوعها إلى مجيئيان البرنامج كاسي وقت ديسي ويرجعي 4.5 لا يكون فيه صارتها وقت غيره إلى بنتلان لقرابته ما دام أي أساس كانوا أساس ياشي دولة الصوماليات أي أقصدين أننا موقفي وحا مثال موقفي دولة وكؤدنا شعب كبنتلان تنقل لغسو أروريي وأيديد النظام كاسية وعرك هيا نظام دستور كدلك خلافسا نظام خلافسا هشيسكي قروتو لغوحة إنا مرد ملون بندوني نظام خلافسا برينك يدور شرطتك مدام ضدك بنتلان dadka laga qaaday ay si aqlabiyad boqolkiiba boqol ay ku diireen waana nidaam ummadda Soomaaliyeed inteeda kale diidan tahay oo saa og tahay galmudug qaybo ka mid ah laga diiday xamar baa laga diiday waxaa laga diiday qaybo ka mid ah South West waxaa laga diiday Jubaland waxaa laga diiday qaybo fara badan Somaliland baa diiday sidaa darteed diidmada nidaamkani waa diidmo ka soo goray ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaana weeye nidaam ku dhisan من حيث يبدع يقبيل يومد الصوماليين أو إنك نفوذي اللي سكون أنت المخلبات في الدراسة موقف كواقعات كيسان وقرتي haddii aad halka istaagteen oo idinku aad halkaas diideen mowqifkii iyo soo jeedinta beesha caalamka maxaa la idinku jawaabay أرتادر beesha caalamka iyadu ma keenin mowqifkan markii la isugu teegsmaaniyo tobankii ilaa 17 bisha January oo laga wada hadlay qaabkay noqon doonto Puntland sida la sheegay waxa ay keentay options kaasna waa lagu diiday waana la socotaa oo horay Puntland waxay isku dayeen concession iyo maaragtay inay samayso aqbalaad inay samayso xaar markii la isugu tagay oo la filayay in wax ka bedel la keeni doono wixii kismaayo dadka Puntland ay la hadleen madaxdooda waa la socotaa waxa soo baxday inaan marna la qaadan karin nidaamka ay wataan maamulada qaarkeed iyo dowladda federaalka oo ku milman maamuladaas oo waan dhexdhexaad ka ahayn sidaa darteed iyagoo cidna la tashan ayay go-aankeeda u gudbiyeen beesha caalamka intii ka joogtay beesha caalamkuna iyadoona hubsan xataa waxaana waxay yihiin iyo cidda qabta ayay caalamka u gudbiyeen arrintaasi waxa weeye arrin ummadda Soomaaliyeed aysan aqbalaynin mara wax alla wixii dastuurka waafaqsan khilaafsanna dib lagu khasbi karaa ma jirto beesha caalamkuna wax alla wixii ummadda kaladeeda constitution-keedii iyo heshiiskeedii shacbiga ah ilaa constitution-ka ama dastuurku waa heshiis shacbi ah heshiiskiina khilaafsan dastuurkiina khilaafsan horena looga heshiiyey ummadda kuma khasbi karaan Puntland موقفkeeda waa cadaysay ummadda Soomaaliyeed inay la qabtana waa ay sheegtay waxay ka sameeyaan iyaga u taalaa laakiin waxaan hubaa inay si fiican u dhageysteen موقفkii Puntland oo aad iyo aad u cadaa علي waxaan ognahay inay jireen ismada oo la kulmay qayb kamid ah dadkii la kulmay oo aan la xariiray waxay ii sheegeen in si ku jirto hanjabaad beesha caalamka Puntland inaad ka beesha caalamka ka maarantaan amal oo kale inay ku jirtay idiga ma ku soo qaaday arrimahaas wax la xariira maya anaga waxay ahayd wixii noo keenay codsi uu soo jeediyay ergeyga iyo safiiradii la socday oo leeyihiin waxaan ballan qaadaynaa inay noqoto markii ugu dambeysay waxaan ballan qaadaynaa nidaamka inuusan u dhicinin sida nidaamku ku hore u dhici jireen waxaan ballan qaadaynaa talada in la idinku soo celiyo sida ku dhacayaan laakiin anagu waxaanu ka hadlaynaa waxa qaanuunka dalka u yaala ummadan haddaanay heshiiskooda xurmo lahayn haddii dastuurkay ku heshiiyeen uusan xurmo lahayn wax xurmo leh ma jiraan ilaahay subxaanahu
وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا الحقوق وبلنت وإن أوفيها قفكان بلنت أوفينا هذا وحوي معها قف مركانا وحنا عبيني إن نظام كاني ومدى الصلاة كلا قاسري وكلا صاري مدى ما يسترن مدى ما يسترني إسكهر كياني إسكو ديري وعلي دغالدي أي صومران يدركي سلاشناتكي كالحوضي كده حيسيبون بنيين هشيس كراها إن لغا قدبه دولة فدرال كان يبقى المسؤول كتحي سيدا وحدعين مدحوينها iyo dawladiisu sanad iyo bar waxay ku dhameeyeen jaariyaan isku bedelo iyo kuwa cusub oo soo qoro sanad iyo barna waxay ku dhameeyeen maamuladii jiray inay la diriraan oo Puntland iyo Jubaland ka mid yihiin maamulo kale oo cusub oo xataa qaarkood ay dastuurka buuxina ay soo saaraan waxay ku dhameeyeen baarlamaanka ilaalushaan waxay ku dhameeyeen hantiga ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysay khaasatan magaalada Muqdisho inay kulligeed wada gataan ayagoo rabaa inay u isticmaalaan electionka waxay ku dhamaatay in security waddanka uu baaba'o ciidankii Soomaaliya loo samayn lahaa oo ciidamadii qaranka ahaa oo looga maarmi lahaa ciidamada waddankeena jooga oo loo soo gurmaday ciidamadaasna in la baabi'iyo laguna bedelo maleeshiyaad iyagu ay diiraan oo iyagu ay sameeyeen marka mas-uuliyadda cidda iskale waa in la saaraa si fiican bayna arrintaa u dhageysteen markaad adigo qiimaysid jawiga Puntland ay ku sugan tahay iyo hadda xaaladda siyaasadeed Soomaaliya 2016 meesha marayso 2016 waxa la 4.5 ayaa dib loogu laabanaya dhinacii dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo dawlad goboleedyadii kale sigdo waxa ku timaada nidaamka waa la qaatay Puntland inay kaligeed istaagto oo diido saameynta ka dhalan doonta maxay noqonaysaa هذا هو Puntland كان يمدين سؤال مسألة المظاهرات على السمينية مش عابدوا وكتر في الجدود لكن عابدوا خيريش وحمد على جسور كذي قبل بدن على جسور كذي برلمان كي الصومالية بعديري إلى صحيحان لكن من الحلول التجي يقول وحنسوينا إنت الله وضع ضلية إيه كلام marka Puntland adeer soo kulada Soomaaliya sida la socotid ayada ayaa maamulka dhameystiran sida ergeyga laftigiisu uu sheegay oo constitution-ka waafaqsan inta kale waxay noqonayaan maamulka ku meel gaar ah maamulkii sameeyay weeye dowladda federaalka maamulka Soomaaliya u dhaxeeyay weeye maamulka waqooyi koonfur isku xireeyay weeye Puntland mujnibay ku leedahay internationalka اللي يسكنون حاجري كانوا وحلا في Puntland مجران مخاليه ديرمدا متكي دبوبسكا متكي ميوديركا متكي مقرانيسا كل قولنا وحكسو قار Puntland مجران أبال بيش عالم كي قارو قولنا وحي وما أنت Puntland الكتو شركرين كتارا مجدو لكن وقانك Puntland يدولد Puntland مدحوين عبدالله المسعودة والرئيو يقال لغا رضاين الصوماليا أوهيليان Puntland أوهيليان أنه موقف واحد بينك سفي عن بان الملودريستي بشرة Puntland هي سياسيين تودا وكيل بانكنهاي لكن فلنتا هي دقاقة ورد على غربة وحنا مسلم مانتا إيه صومالي تشوفته ميل بيش عالم كلمه دوان كرته إني دولك صادق تعرينتا لغاية هذا قابك وفي عنا وحل وادي ولغو يشيو صوماليا دقالها كسرة إيه كفاية بيشت haddii sidaas dawladina diiday cid kasta diiday xagee la aadi kara caliyow meel dhexdhexe oo aan deegaan ahayn 4.5 na ahayn hal cod iyo hal qofna aan ahayn oo adiga caliya maanta dii lagu weydiiyo aad shimiiska saari karto ma jirtaa هذا هو opportunity كان أفرح Soomaaliya fursad 4 sano haysatay dawladdan waxa lagu doortay 4 sano 2012 inay dhameystirto dastuurka dalka inay maamulada si dastuurka waafaqsan soo dhisto dhaqaalaha Soomaaliya loogu doortay inay si wanaagsan oo u dhaxeeyo ummadda u qaybiso in ay dhiibo ummadda Soomaaliyeed reconciliation ay samayso doorashada intaas ka soo bixi kartaa inay ummadda ay gaarsiiso one vote waxaan qabaa options kuwa farbareeyay Puntland shirkii ay istixaama waxay keentay sideed model oo ka duwan 4.5 oo lagu gaari karo kulligood in Soomaaliya ay doorasho macquul uga dhacdo dadkuna ay ku wada kalsoonaan karaan marka barnaamijka dowladda federaalka siyaasadda Puntland lama weydiin karo midda labaad Soomaaliya waxay u baahan tahay wada fariisato 6 bilood waqti aad u fiican weeye waana waqti wax la gaari karo
dowladda maanta xamar ka dhisan oo madaxweyne xasan uu yahay iska daa inay Soomaali badbaadisay nafteeda ma badbaadin karto guryaheeda ma badbaadin karto wasaaradaheeda ma badbaadin karto waa ogtahay waxa ka socda xamar oo xildhibaanada lagu leynayo oo wasiirada lagu leynayo oo amni la'aanta ka jirta waxa weeye halkee u qaadaysaa ummadda doorasho uga samaynaysaa oo election lagu gelayaa haddaan qofna amni uusan ku joogi karinin caalamka waxbay garanayaan waana ay dhegaysan Puntland inta wixii ka dambeynaadeer adood mahadsan waxaa laga rabaa dowladda Puntland inay qaadato mowqif ummadda Soomaaliyeed iyadoo ay horseed ugu noqonayso kuna hogaaminayso in la dhamaystiro ama laga wada hadlo wixii ka badfalay laakiin Puntland in la weydiiyo khaladka dowladda federaalka gashay arrinta gari xaqmin dhammaan